wiilkii adhiraacaha ahaa ee beenta sheegay. Beri hore waxaa jiri jiray wiil yar. Wiilka yari adhiga ayuu raaci jiray, isagoo dadka tuulada degan adhigooda u daaqgeyn jiray. Maalintii oo dhan adhiga ayuu la joogi jiray, isagoo ka ilaalin jiray adhiga yeyda soo weeraraysa ee rabta inay cunto. Adhiguna wuxuu ahaa mid iska daaqa doogga, iskana cabba biyaha, iyagoo marba dhinac u socda. Wiilkii yaraa wuu ku agcaajisay adhigii, wax uu ku ciyaarana wuu waayey. Deetana wuu fikiray. Maskaxdiisa waxa ku soo dhacday inuu been u sheego dadkii tuulada inta uu buurta koro, inuu ku qayliyo, "Icaawiya, icaawiyo i badbaadiya, waxa i soo weeraray yey, xoolihiinina wuu dhameeyey." Wiilkii yaraa ee adhiraacaha ahaa markuu qayladii joojin waayey, waxaa maqlay dadkii tuulada, waxaanay go'aan ku gaadheen inay xoolahooda iyo inanka yarba badbaadiyaan. Markii ay dadku u yimaadeen wiilkii yaraa, kana ag waayeen wax yey ah, wiilkii yaraa wuxuu u sheegay yeygii inuu baxsaday markuu arkay dadka ku soo socda. Dadkii tuuladu waxay sameeyaan ay garan waayeen, waanay iskaga tegeen. Wiilkii yaraana qosol ayuu la dhacay, isagoo u malaynayo inuu wax fiican oo ku xaraabaysta sameeyey. Maalinkii labaadna wuu ku celiyey wuxuu uu sameeyey maalinkii hore. Isla sidii maalintiina wuxuu u sheegay dadkii inuu yeygii cararay markuu arkay dadka ku soo socda. Laakiin dadkii way ka shakiyeen waxaan uu wiilku sheegayo, waxaanay u muujiyeen cadho. Wiilkiina wuu cabsaday, dadkiina wuu u sheegay inuu been u sheegayay oo ciyaar ka ahayd. Dadkiina way ka xanaaqeen, waxaanay dhaheen mar dambe waxaas oo kale ha samaynin. Wiilkii yaraana ballan ayuu ka qaaday inaanu mar dambe waxaa samayn doonin. Ayaamo ayaa ka soo wareegay, wiilkii yaraana adhigii wuu ilaalinayo. Maalin maalmihii ka mid ah, aygii ayaa qayliyey oo qayliyey. Wiilkii buurta ayuu fuulay, waxaanuu arkay yey weyn oo ku soo ordaya. Wiilkiina wuu qaylinayaa isagoo leh, "Icaawiya, waan idin baryayaa, soo carara, adhigiina badbaadiya." Dadkii tuuladu way maqleen inuu u yeedhayo, laakiin umay dhaqaaqin, umanay tegin, waayo waxay u malaynayaan inuu been sheegayo siduu hore beenta ugu sheegi jiray. Wiilkii yaraa wuu qaylinayaa, wuu ooyayaa, laakiin cidi uma imanayso. Geed ayuu fuulay si uu naftiisa u badbaadiyo. Yeygiina adhigii ayuu soo weeraray, isagoo xabad u cunaya, adhigiina isagoo kala cararaya. Wiilkii yaraana kor ayuu ka arkayaa isagoo si uu u badbaadiyo adhiga garanla. Yeygii markuu dhargay wuxuu cuni karana uu cunay, meeshii wuu iskaga tegey. Wiilkii yaraa ee adhiga ilaalinayay geedkii wuu ka soo degi waayey, waayo wuxuu ka cabsanayay dadkii tuulada. Cadceeddii ayaa dhacday, dhulkiina wuu madoobaaday, dadkiina waxay u cabsadeen adhigoodii. Markii ay dadkii meeshii tegeen si ay u soo fiiriyaan, waxay arkeen wixii meesha ka dhacay. Waxay ogaadeen in markan wiilka yari run sheegayay, qayladuna ay run ka ahayd, waayo beenaalaha cidina ma rumaysanayso xitaa hadduu run sheegayo. Wiilkii yaraana wuu murugooday, isagoo ka murugaysan qaladka uu sameeyey ee uu naftiisiina ku waayi gaadhay. Dadka oo been loo sheego iyadoo lagaga xaraabaysanayo ama lagu ciyaarayo waa akhlaaq xun oo aan wanaagsanayn, waayo dadku waxay kugu baranayaan beenaale, kumana rumaysan doonaan.